بسم الله الرحمن الرحيم وروان دحوله sheekad waxay noo mareysay ayadoo anoo la yaaban 28 iyo waxaas dadkan halkay u socdaan oo leh 800 oo Eritrean iyo 150 Soomaali markii la iigay anoo dan uur lahaa la horta waan dali lahaa amba iga soo dhici lahaa amba uuran lahayn baaban yeelan lahaa naxdin dareed anyway Soomaalidii marka qaar baan gartay wareed adiga ma soo tahriibaysaba dadkii horta intii ugu badnayd dadka isnaqaanay adiga no wax weyn baa qaldan adiga tahriib dadka horta way yaabeen ba dadkii day ku yaa iska garanay meesha almuhim waristajiya baan ku irada waxaan ku iri Ethiopia man soo maray ba waxaan barna way ka adagtahay tajlaa maxaa weeye المهم dadkii halkii baan waxaan ku rintaan is aqoon isku baranay intii aan hore isku naqaanayna dadka iska soo qoshi marka anagu meeshii joogno waxaan naloo keenay abaayado gabdhaha dhan waxaa loo keenay abaayado kaba buura iyo khamaaro iyo waxyaabaha waxay gabdhuhu baahnayeen oo dhan baa loo keenay nimankana surwaal iyo shaar iyo waxaan baa loo keenay waan loo qaybiyo qof walba xal weydiin taygiisa iyo wixiisa yani dhar ku xidho waan wada xirxiranay alla baa la isla gaal iyo muslim hadda Eritreanku intooda badan waa gaalo moogtiin cabaayada xidhan sababtoo ah alla haday ku arkaan cidii barakeysnayd saxaraha Liibiya say uga badbaadaan meeshii neefafku way iska socdaan neefaf baa 24 sax nool qalaya maxay ahayd laakiin kulaylka meeshii ka dhacayay cunto iska daayay cunto markaa maqashad ma tagaysa biyihii isaga kulul adiga waa kulushay soo ma biyo qabow baa kugu fiican soo ma laakiin biyo qabow ma jiro biyihii asaga ku gubayo kulaylka si qaadaysa laakiin aan sameyn jirnay ma taqaanaan caagad sootan maahan intaan sharabaad gelino oo biyo ku shushubno baan leedo u dhignaa sharabaadka markuu okay sharabaadku markaa wuxuu sharabaadka qoyan wuxuu soo jiidayaa leeda biyo qaboojinaya almuhim technique-ayga ahayd dadkii meesha soo maray kulli way fahmayaan kan fahmaynayna faanteen baan rajaynaya wax ma sharaxay saas baan nolosheeda adigu iskaga maaragtay waxaysan jiray meesha waxaan joognay usbuuc mise 2 usbuuc waxa la yiri hadda la baxaya istiyaariya saxarihii waxaad galaysaan Suudaan hey gawaari waaweyn baa yimid imse gaari baa yimid 8 mise 9 gaari oo la isku koray Eritrean garta iyagu aad buu badnaay mar walba tahriiban Eritrean ku iyaga naga bad Soomaali ba soo Ethiopian ba soo raacay Ethiopian ku tahriibka kuma bad ina qaldanayna laga yaabaa intaan soo arkaan aan u sheegay waxa kale soo raacana waa Afrikaankaas cidda deriska almuhim 3 mise 4 mise 5 gaari waxa qaatay Eritrean anagu hal gaari baan iska si laba istighfarullah mid ay gabdhuhu ka buuxeen iyo mid nimanka iyo dadka iska tacbaanka dadka iska tacbaanka iyo gabdhaha wiilasha gaari saxarihi baa hadda la soo galay gaariga ma aragteen waxa ka buuxa biyo cuntadu waa deedeed cunto markaan ilaahay cunto maaya waa biscuit iyo cabitaan biscuitka kala noocyo badan kuwa energy-ga kuwa maxayga adiga waxa dhan heed wax loogu talagalay in weeyaan waxani qorshu ku socdaa iska yaacun maahe almuhim Suudaantu aqli male waxa caadi ahaanta waxay ahayd inay gaari gooni u sameeyaan cuntada iyo biyaha iyo cabitaanka raashinka inay gaari gooni u sameeyaan dadkii bay cuntada u saarayaan dadka gaarigan anagu saaranahay bay cuntadana nala saaray dadku ma aqli bay leeyihiin ayagoon 2 daqiiqadood ba soconin ba cuntadiiba ku dheelayaan Suudaaniintu laakiin way nooga digay waxay nagu raadeen intaas ay inii badara intaas ay inii ceeshiye intaas ay inii maxaya hadda iska dhamaysaan idinka inii taala haddaad yaryaraysataan waa shaqadiina buu waa kaasa Soomaalida intaas ay leeyihiin Eritreanku intaas ay leeyihiin annaga Soomaali haddaan nahayna waa taqaaniin ma sha Allah waa ku dheelay waa ku baabaashaalay 2 cisho markii ka soo wareegteen saxaraha ma habeen oo dhanna maalin oo dhan waan soconay habeen oo dhan waan seexanaynay haddii kale intiifka saxa gaariga iyo waxa saxaruna maadaama uu leeyahay askarta jeeshka kuwa saxaraha ilaaliyo xasbana na arkaya maalin kale socon jiray habeenkina la seexan jiray 2 cisho ka soo wareegay ma cuntadii iska dhamaynay markaas ayna Eritrean waa dad aqli badan Eritrean way iska yareystaan laba isku qaybiyaan wuxuu kale iska arag nidaam Eritrean inaan tagnan ka soo xadi jiray laakiin wiilash Soomaalidu waxay ku fiican yihiin gabdhaha way u naxariistaan gabdhaha way noo soo xadaan biyo way noo soo xadaan cabitaanka way noo soo xadaan cunto walba way noo soo xadaan dharka way noo soo shay walba u baahanahay way noo soo qaadaan
يعني ويصح هذا أنا مركي لبع شيء كسور كتير عن تدي سكر دمينا ولا دم حنا هذي عادي هانتا صدح إشان صعون لهين صدح الشق بان صحراء ليبيا إلا صحراء السودان صعونينا مالك أفراد با حدود كليبيا مركان قارنو ليبيا با إيمانا يو نسي قاضية وطن والبدد كيسا مركا معمولا قف سوداني ليبيا كما جين كرو قف إثيوبيانا السودان كما جين كرو حدود مركو قف والبيكو غارسيا وكوريغيا قف كي إسكالها بكو قد بنايا ما فهمتين marka caadi ahaanta maadaama ay nagu yiraan Suudaantu 3 cisho soconaysaan anagu xisaabtii 3 cisho ka bacdi shuur Liibiya waad galaysaan waan siniri ma cuntada ugu ciyaar laakiin sheekadu sidaas ma ahayn waxa nagu dhacday inaan wadadaba ka lunno Suudaantii isku khalkhalaan waxba qaldamay I don't know what wadada la bedelayaa meel kale aan ka sii wareegaysanayna halkaas la maxayeynaya cuntadii waan dhamaynay imsa cisho marka Liibiya ku galaynaa أسبوع محيا أنتظر أنا قوان رميناي هذا قايني الله أم بيسكير ورساني حل ما هني حل ما كان ما يبوري كلا حظا إزدلا إسعنا وحارتان سمايا أنا أسبوع سحراون كوتشريا إذن كايني تاب الله هذا فان بايرس كبدلي dadka cuntada isku dilay dadka biyaha isku dilay anaga kayga waan dhamaysanaadan Soomaalinaay wax noo haray haba yaraatee maba jirtaba waxaan ku haysanaa dadka wuxuugi Afrikaan korta looma dhawaan karayaga ma sha Allah elitariankan ka adagnahay elitarianka waxaan ka soo xadnaa milix sonkor milixii sonkorta waxay saxara ka qabanaysaa anay niishe elitarianka waa dad aqli badan markay energy markuu ka dhaco milixii sonkor inta isku qasaan bay ka energy ahaan u isticmaalaan annagu wadan Soomaalinahay gabadhuna dirciga gartay qabtay ku soo baxda ninkuna shaarkiisa weelku qabay ku soo kama fikiro maxaa kugu dhacay maxaad ku bedelan maxaa kana no elitarianku laakiin boorsadooda waxa ka buuxda saabun sonkor milix canjeero basbaas lacala bisliyada wadan Liibiya nabad ku gaadhaan basbaasta ku casaysta corona mooy kulli bisaan bay sameyn jireen markaan Liibiya nimidnaynayo kulli wala almuhim wax walba ay u baahan karaan qof walba boorsadiisa ka helays ala wadada isku soo diyaariyay iyagu tahriib noloshooda tahriib alla dadkaad dad Soomaali ka daran Soomaali ban ka yaabi jireen dad ka daran waa iyaga noloshooda tahriib ka samaysan أنا أنتي يري إلكتريا كويس تيمان كرام هذا حالته آد بوحمتاي آد بحالة واتكات مرة صدح الشمس أفرع الشو أنا دوم صحراء كسي تشرني بونينكي نقولي وان دونا هاي حتى لقى يابينا عاوقل ليبيا الله أكبر وانا قد فرحت وانا is عفني يقرأ لنا قحن كوكو سمي حماني كمان عادي أنطق في عم باي هيا أدودت كيوا إسكوا دقا عن قاضي شبك anagoo isla caawa galaysaan Liibiya umba markay ahayd qalbihi meelaha duur adiga baldhici umba waxaan soo hareereeyay ciidan meel allaaliya meel ay ka yimaadeen aanan garanayn wallahi anagu fadhiisana gaari waan iska dal fadhiyay waxaan arkay darawalkii lagu hayo bastoolad gaari istaagay gaarido dhan wada istaag markaan kor istaagno fiirinay dagaal baaba ka dhacayba meeshan joogno alla dhulkan isku wada nabnay taysay la yeela waaba jeeshkii aan Suudaan waa askartii Suudaan ee xuduudka ilaalinaysay alla marka xuduudka Liibiya soo dhawaan taa maxaa shan qof baa nawaday shan qof maxay iska celin karaan ma jeesh dhan iska celinay ana la qabtay saa u xanaaqay suuq qalbigu ii jabay hadda ogaan lahaydeen dadka kalena ila mid oo askartii nagu yiri ha cabsanina annagu askar baanay agteedad ammaan ku walis ammaankaaga رفاتك أصلا مري ما أكتها ماشي دقيقة علينا يسيب أيا تجنيو على منتكي وقدم بيبا وحلو وكعيارتين